السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت ماموسك يا كرامة مدن أدبان ويني سلاني وقت وناكسن ينور القروح بدنا ويني رجينينا كسور دوادا كنال كينا عافيماتك دكتك عافيماتك غويسك وإن شاء الله كجه الله إنه كليب كان إنه كسور قادنا إنه عدوجات كوب اللارن يا الله ده هاي cimrigaaga iyo noloshaada haddii aynu fahmi weyno cadowga dhabta ama aynu hilmaamno ama uu ina baalmaro qofka waxa ku dhacaya wax loo yaqaan disorder jahwareer iyo inay jihada iyo jiheeyaashu qofka ay ka lumaan cadowgaaga dhabta ka ku soo xiga iyo kuwa aad la dagaalami karto ama si fudud aad maskaxdaada iyo noloshaada aad xayndaab uga gelin kartaa inay ku kala socnaadaan oo ay clear iyo classification ay ku leeyihiin baa muhiima maanta markaa waxaynu doonaynaa inaynu eegno cadawga aad ka weyn iyo qaabka fudud ee aad ula dagaalami karto aad uga guulaysan karto adigoo markaas guulo fiican ka gaadhaya oo ka guulaysanaya oo noloshaada gabi ahaanba xayndaabada ka gelinaya inuu cadowgaas u ka adkaado haddii cadowgaas uu ka adkaadana noloshaada mugti badan iyo madow fara badan ayaa dabcan ku gadaamaya haddaba cadowgan marka aynu ka sheekaynayno waxaa laga yaabaa inay markiiba qalbigaaga ku soo dhacaan dad xilliyada kamiraad isku dhacdeen qof ay saafdhaafteen cid deegaanka iyo bay'adda ku nool kugula nool ha dhowaado ha kaa fogaado qof dadka ka mida ayaa laga yaabaa markiiba inuu qalbigaaga ku soo dhaco oo markaas waxayna dhex mareen ama mararka ka mida waxayna dhex mareen arrinta noocaasa laga yaabaa markiiba maskaxaada si automatic inay ugu soo dhacdo laakiin xaqiiqda markaynu ka hadalno cadowga laba qaybood baa loo kala saaraa mid waxaa la yiraahdaa internal enemy midna waxaa la yiraahdaa external enemy labadaas aad u kala xasuusno cadowga dibadda waa ka imanayna laba cadow ayaa jiro aad u weyn mid waa devil waa shaydaanka ilaahay baa inoo sheegay innahu lakum caduwwun mubiin buu ina yidhi waa cadowga ugu weyn aad leedihiin shaydaanku marka inaynu ka taxadarno وعبادة كل دقالنتو وان فإذا وصص الشيطان فاستعذ بالله مركا وكوس واسيو او خيرات كغردو ee shakiga uu kugu tuuro inaad fafirru ila Allah dhinaca Ilaahay inaad uga cararto oo Ilaahay aad ka hoos gasho waa muhiim waana shay aad u qiimo badan oo muhiimadeeda laakiin klibkeenu dul hogan maayo runtii shaydaanka oo Ilaahay noo sheegay culimadeena ay naga dhargisay koso fiican baynu ka haysanaa qaabka looga taxadarayo inkastoo markasta in la xasuusiyo ay waajib tahay laakiin qodobkaynu doonayna inaynu runtii aad isku dul taagna waa maxay waa yo salaf waa naftaada ma xasuusan tahay inay naftaadu tahay cadowga ugu weyn aad leedahay cadowga ugu culus aad leedahay waxa laga yaabaa inaad jacayl badan ku bixiso waxay doonaysaa aad u fuliso markasta aad jeclaato dibta aad ka dhawrto mushkiladda aad ka dhawrto qofkii xaqdin soo gaarsiiya daawaca ee dhinacaaga soo eega ee qalbi ahaan ku daawaca ama physical mentally iyo emotionally ku daawaca aad cadaawad u qaato haddaba nafta ayaa waxay tahay cadawiyada ugu waaweyn ee aad leedahay ama cadowga labaad ee aad leedahay ee ugu culus ee ugu dhibta badan laba ayaa lagula dagaalamaa wax loo yaqaan accountability iyo contrastability labadaas lagula dagaalamaa nafta horda naftu rasuulka ay noo sheego inna nafsun la amaratu bisu al-mukhalafa wal-muhasaba labadaas markaa lagula dagaalamaa naftu inta badan boqolkiiba 99 waxay ku fartaa xumaanta
dhibta iyo inay waxay jeceshahay oo runtii wuxuu shaydaanku jecel yahay ayay ku fartaa. inna al-amaaratu bis-suu, xumaanta ayay ku faraysa. markaa waxaynu u baahan maxaa lagula dagaalamayaa almuxaasaba walmukhaalafa, in la khilaafo isla markaana lala xisaabtamo. waa accountability iyo contrastability in lagu sameeyo ayay u baahan tahay naftu. wax allaala iyo waxa ay ku farto shaandhe xisaabi, shaandhe ku khilaaf waxyaabaha xun oo dhan, ku khilaaf, mukhaalaf ku samee, xisaabtana la daba taagno. haddii aad labadaa ka dawayso oo labadaa aad nafta ku dawayso, waxaa tahay cadowgaaga mid ka guulaystay. qof u baahan hambalyayn iyo bushaarayn baa tahay. qof iskoor wanaagsan iyo guul dahabiyahoo la taabtaana ka soo hoyiya cadowgiisa. naftu waxay u baahan tahay inaad kaantaroosho. markaad emotion ka tay xaalad kasta oo aad ku jirto, haddaad nimco ku jirto, haddaad sabool ku jirto, haddaad caafimaad haysato, haddaad xanuun ku jirto, mar kasta naftu waxay kaaga baahan tahay control iyo adkaansho iyo adayg noocay ku fiican tahay oo ay ku wanaagsan tahay. haddaad barwaaqaysan tahay xumaan bay raadinaysaa, dib bay doonaysaa, mashkilad, kibir, qab, ummadda inaad ku tumato ayay raadinaysaa. haddaad dhibaataysan tahay way ooyeysaa oo way ololaysaa oo ay kaxee oo hiif iyo cadho iyo hiiftaan bay kugu abuuraysaa. waxaasoo dhan waxay u baahan tahay under control inaad samayso oo aad gacanta ku hayso. xilli kasta farxadda, barwaaqada, nimcada, murugada iyo tiiraanyada waqti aanay cabanaynin oo aanay u baahnayn inay wax samayso ma jirto. saalaajkii qofku wuxuu u baahan yahay inuu la xisaabtamo, controlo, isla markaa waxyaabaha ay ku qaldan tahay oo dhanna ku khilaafo. haddaad ka guulaysatid xilliyada ka mid ah rasuulku waa kulahaa, sida runtii aad wada ogsoontihiin, geesiga adduunka dul saaran, qofka ugu geesisan dunida waa qofka marka uu cadhoodo naftiisa control. yacni waxaad dareemi kartaa culayska ay naftu leedahay. wax kale oo dhan waad ka gudbi kartaa. carqaladda ugu weyni waa nafta, yourself, naftaada, xayaatada kugu jirta iyo naftu waxyaabo badan bay jeceshay. raaxaday jeceshay, khiyaaligay jeceshay, lacibkay jeceshay, lahwigay jeceshay, mashkiladahaas oo dhan bay jeceshay. dhammaantood waxaasina waxay kugu tuurayaan xumaan, waxay kugu tuurayaan waqtigaaga dahabiga inaad ku weydo oo markaa cadaab iyo nolol adduun iyo nolol aakhira. labada haddaad kula xisaabtanto naftaada, isla markaas aad ogaateen in cadowgaaga koobaad tahay oo aad gaashaan adag iyo difaaceedaa ka gasho oo xilli kasta iyo wax kastay doonaysa aad ka qabato ilaa wax daruuriya ama saxa maahan. waxaad dee qof cadowgiisii ugu weynaa ka guulaystay. cadowyada kale ee bannaanka jooga iska daciifka iyo waxaa cagta ayaad marinaysaa mar haddaad nafta aad ka soo baxsato oo nafta aad meel saarto. iyo shaydaanka haddaad labadaa meel saarto, waxa kale waa iska basiid. waxa kale ku wareegi maysid ee cagta ayaad marin doontaa haddii ilaahay ka dhigo. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. fadlan la sii wadaaga bulshadeena kale aynu jecelnahay inay nagu soo biiraan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.